يا غير أخي. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. إلهي سبحانه وتعالى نقول دكتورك لما السؤال اللي سوق اللي علينا دكتور الوجه بدونه سؤال شكوبان وحين هي هدو ما كستا وأكيد أنا أقول بالحجابة أما الحجابة ويوم مركز صلاة تكون يسوع محل سؤال سكوريسا محل سؤال جالسة هذه هيك وأكيد وأدي ومريض عنه سؤال شغلات يا قال لماذا بلاوي قال لماذا يا قفل بيقول رئيس قالوا لي لا يقالوا لي su-aasha ugu horeysa dee waxa weeye gaalnimo cidda bilowda waa la iska garanaya waa ibliis weeyi markii la abuuray ibnu aadamka nebi aadam la abuuray markaa waxaa joogay malaa'igta oo ah dee dad cibaadaysanayo laa yacsuuna allaha maa amarahum yafcaluuna maa yu'maruun isaguna ka mid baahay waa la cibaadaysanayay kana min aljin fafasaqa can amri rabbih marka ibliis baa inoo bilaabay xasad iyo kibir iyo waxyaabahaasaa ku kalifay inuu gaaloobo su-aasha labaad alla subxaanahu wa tacaala ina allaha jamiilu yuxibu ljamaal bini aadamku ma inuu maryo xidhuu ku qurux badanya mise inuu qaawanaado ya adaaba isnacaya markaad maryaha dhigato haddaad muraayad hor dhigto marka ilaahay loo cibaadaysanayana xaaladiba xaaladay ugu wanaagsan tahay baa la doonaya ya bani aadama khuduu ziinatakum cinda kuli masjid salaad bay inantu ka hadlaysaa mise inan bayna soo weydiiyey talow anigu waxaas waa xagga gabdhahay ka tibaan malaynaya waa inan weeye ha salaad oo xaaladii la doonayey ugu dhamayska tirnayd baa su-aashu ku saabsan tahay in qaawanaan lagu tukadee marka la maydhanayo ma maryaha lagu maydhaa mise waa la dhigtaa ya dee maryaha waa la dhigtaa nabigaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam qofku markuu keligii yahay oo maydhanayo muxuu samaynaya nabigu wuxuu uhi calayhi الsalaatu wasalaam faallahu axaqu an yustaxyaa minhu bini aadan hadduu ku arki lahaa qaawanaan hortiisa miyaad ku maydhan lahayd markaynu hadda badaha ku dabaalanayna la wada joogo so wax lama xidho waxbaa la xidhaa qaawanaan cidi kuma gasho haddii dad ay ku arki lahaayeen qaabkeebaad u maydhan lahayd dee waxa la yihi waa la is asturi lahaa wuxuu uhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam faallahu axaqu an yustaxyaa minhu ilaahay baa mudan in la iska asturo masale kalena waa idiin sheegaya culimmadu ay ka hadlaan markaad qolkaaga gasho gaarka ku ah qolkaad adigu iska leedahay inaanay ama wiilow sariirtaada aad tagto ama aad wax iska akhrisanayso ama mobeylkaaga aada la fadhido oo keliga aad tahay ka waran haddaad maryaha intaad iska wada dhigto aad halkaas ka fadhiisato ma dhacdaa naftu ma ku siinaysaa naftu ma ku siinaysaa naftu ma ogola waa wax laga yaqyaqsoodo wey qof caadiya maaha qofkaas way dhici kartaa culimada qaar waxay leeyihiin qofku hadduu keligii noqdo cidi aanay arkayn oo qolkiisa uu fadhiyo maryaha ma dhiganaya culimo badani waxay dhaha xaaraan wey xataa haddaan cidi ku arkayn qaabdarnaanteeda awgeed waayo wixii xun sharcigu waa diidaa inay xun tahayna waa isku waafaqsannahay soo ma waa isku waafaqsanna qofku inuu yidhaahdo kulayl baa jiro qolka markaan galo intaan xidho daahyadana sii daayo baa katabaanka sudhaya waxaba ma dhacayso marka intaasi ku filan baan filaya jazakum allahu khayra asalaamu calaykum waraxmat ullah